waxaa la soo warinayaa maalin maalmaha ka mida dibqalooc ayaa ka codsada raah kuna yidhi waxaad ii samaysaa asxaan waxaad ii geysaa webiga geeskiisa anigoo adiga dusha kaa saaran waxaana kuu ballanqaadayaa inay dibqaloocyada kale ku taaban rahi ayaa fiishay kuna yidhi maanigaa waala markaa adiga dusha kugu qaadayo yaase aaminaya khiyaanadaadii dhagartaadii suntaada dibqalooci ayaa ku yidhi sidee baan anigoo adiga dusha kaa saaran kuu qaniinayaa maanigaa isdilaya oo isharqinaya rahi ayaa fakaray kuna yidhi saaxiibkiis hadday sidaa tahay balina kaxay iyadoo la marayo webiga dhexbartankiisii dibqalooci wuxuu qaniinay rahi suntiisanuu ku duray rahi ayaa xanaaqay soo fiirshay kuna yidhi war maxaa samaysay anigii adiga miyaan isla dhimanayn dibqalooci ayaa fiirshay kuna yidhi dhagartu waa ii dabeecad rahuna waa mooge dowladda Soomaaliya waxaad moodaa inay hadda isbiid zaa'id ku furan yahay tusaale ahaan manhajka waxbarasho ma ku habboon tahay xilligan in Soomaali laga wada dhigo maadooyinka sida chemistry-ga biology-ga xisaabta xilligan la taagan yahay anaga shakhsi ahaanteena maya hase ila daawada waxbarashada dalka oo muddo kala qaybsanaa maadaama caruurta tan iyo burburkii wax lagu barayay manhaj kala duwan oo qaarkood laga keenay dalalka carabta iyo kuwa manhaj laga keenay ee dhanka dalka Kenya marka waxay u baahanaysaa oo kaliya in macallimiinta oo baro loo helo ardayda si fiican loo baro maadaama ardayda ay wax ku kala baran jireen Carabi English iyo af Soomaali manhajkan hadda waxa uu ku qoran yahay af Soomaali marka waxa suuragal ah in caqabad badan kala kulmaan ardayda aan u diyaarsaneyn in af Soomaali wax ku bartaan oo luqado kale wax ku sii baranayay hadda fasalada dhexe sii maraya marka manhaj kan wuxuu isugu jiraa dugsiga hoose dhexe iyo dugsiga sare oo dawladda ay soo bandhigtay dhammaan daraasaadkii iyo casharadii loo baahnaa ayaa lagu baranayaa sidoo kale waxay dawladda suuragal in caqabad ka wajahdo sidii dalka loogu baahin lahaa manhajkan oo waddanka oo dhan uu u gaari lahaa dhammaan iskuulada uu u gaari lahaa hadda waxaa lagu bilaabayaa 24 iskuul oo dawladda lagu wareejiyey oo ardayda dhigta oo la sheegay inay tiradooda gaaraysa 14,800 oo arday ay waxbarasho lacag la'aan heli doonaan waxayna arrintaasi ku noqonaysaa dhibic yar oo bad ku dhacday oo ka mid ah ardayda guud ee waddanka oo dhan ee waxbarashada u baahan madaxweynaha dalka Soomaaliya gabadhiisa ayaa lagu guursaday dalka Mareykanka gaar ahaan Colombo Ohio ma kula tahay lamaanaha qarniga in dawladda nabad iyo nolol ay bixinayso halka madaxweyne Farmaajo gabadhiisa kaligiis u bixiyay ma kula sii tahay dawladda Soomaaliya inay doonayso inay dagaal sokeeye ka dhex dhaliso bulshada isla degan dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho Welcome to the family. مبروك مبروك ما شاء الله. I know you didn't have to see this. waa su'aal muhiim ah mudan in isweydiisid waa maxay sababta markay madaxda Soomaaliyeed miidiyaha Soomaalida ay hortaagan eray English u isticmaalaan halka markii ay meel caalamka kamida ay taagan yihiin aad mood Englishkooda in cirka laga soo tuuray hase ahaatee nin walba tabartiisa qodaxda ugu tagtaa baa la yiri haddii madaxda Soomaaliyeed ay luqadii eber ka yihiin ma waxay doonayaan dhallaankii Soomaaliyeed ama dhalinyaradii Soomaaliyeed inay jaahiliin ka wada dhigaan waa midaan la yaabanahay ila daawada videoga soo socda Senior commanders, former sector heads, and infantrymen have unconditionally surrendered as well, bringing with them arsenal and non-standard tactical vehicles known in military terms as technicals. The combination of these factories has further weakened the terror network. Have you acted before together? Never. Never. No. Did you get your stunts yourself? Men hva er den vanligste feilen?
dulqaad badan kadib wasiir axmed ayaa sheegay ama wasiirka arrimaha dibadda axmed ciise cawad ayaa hoosta ka xariiqay dowladda soomaaliya inay guulo waaweyn ka gaartay dagaalka ay kula jirto kooxaha waxqarbada ee al-shabaab islamarkaana haatan loo baahan yahay in awood lagu maquunsho al-shabaab sidoo kale wuxuu kaleu sheegay in saraakiil sarsare ee ka tirsan al-shabaab ay isku soo dhiibeen dowladda federaalka soomaaliya wasiir cawad oo ama wasiir axmed ciise cawad wuxuu kaloo sheegay uu tilmaamay haddii cunuqabateynta laga qaado soomaaliya ay uga dhigan tahay ama uga dhignoon doonta inay dowladda soomaaliya ay hesho awood buuxda oo ay dib uga hanan karto deegaanada ay gacanta ku hayaan al-shabaab soomaaliya wuxuu kalou sheegay soomaaliya in cunuqabateyn la saaray wixii ka dambeeyey taa oo burburtay dowladdii dhexaal loo baahan yahay in hadda hubka laga qaado codsana ay ka tahay wasiirka amniga jubbaland cabdirashiid janaan ayaa ku eedeeyey dowladda soomaaliya inay ku mashquulsan tahay xaaladaha ka jira facebooka halka aysan ka warhaynin buu leeyahay xaaladda guud ee dalka soomaaliya wasiirka ayaa hadalkiisa sii watay cabdirashiid janaan ayaa carabka ku adkeeyey sheegayna in loo baahan yahay dowlad ka warhaysa xaaladda guud iyo xaaladda ciidanka wasiirka ayaa carabka ku tilmaamay sheegayna in maalmihii lasoo dhaafay al-shabaab ay dad shacaba ku laayeen degmada ceelwaaq iyo gobolka gado dowladda soomaaliya ay ku mashquulsan tahay aroos qaran ciidamada soomaaliyeed ee maalin kasta dagaalka galaya aan laga warqabin oo laga jecel yahay keliya 10 qof ama 20 qof facebooka soo dhigaan qoraal oo la bumbuuniyo wasiirka ayaa sheegay in dadkaasna casuumaad gaaran lagu sameeyo xarunta filla soomaaliya halka ciidanka dhaawacana meel lagu hayn waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeennii dowladda soomaaliya ayaa iibisay kawaan ku yaalay ama kawaanka malayga ku yaala magaalada muqdisho kaas oo la sheegay in lagu wareejiyey haweeney ka timid dibadda haweeneydaas ayaa sheegtay inay dhammaan ay burburin doonto dhulka una bedeli doonto meel baabuurta lagu baakimo waxaase su-aal naga ah dhul ay shacab wada leeyihiin shakhsi ma lagu wareejin karaa bad baasaan ugula galay dadkii waa wada dhaawac aniga feeraha waa u jeedeen wax iga yaalla shaqadeeni dhammeed habsanay noqotay naag baa waxay tidhi kawaanka dhan waxaan ka dhiganayaa baakin baabuur kawaanka cabdicasiis waaye oo malayga sidaa darteed idaacadda waa noo jeediin waxaan codsanaynaa madaxweynaha iyo xasan cali khayre dadkan ay nagu soo hogaaminayaan in ilaahay intay ka baqaan ay naga daayaan ayagaa waddanka mas-uulkaa annagana mas-uul naga ah sidaasaan codsanaynaa hantideenna waa baaba'day kalluunkeenna baddaa lagu qobay maalin kasta liif iyo waxaan u socdaa xabad aniga maxamed maxamuud cali yaa layidhaha naanistayda fargeetaa layidhaha 46 sanaan ka shaqeeyo kawaanka malayga ayadoo geel lagu xiraayo kawaanka liido ma garatay waxa weeye waxa aan hadda aragnay ma arkin dawladaan soo aragnay wax walbaan soo aragnay annagoo waaba noo dhisan yihiin oon guri ka dhisnayn oon qaboojiye oolin oon iskaashata ka jirin ayaan shaqaynayna dhul dawlo waaye dhul shacab waa shacabka garabkaa lagu dhisay iskaa wuxu qabsaan ku dhisnay waa garataan u malaynaya qodaydaan uga dhisay waxaan ka soo qaadayna jamal nuurta meel layidhaha dhagaxda ma garatay biyahana ceel dhanaanahan ka dhaansanayna waxa weeye walaalkeeyow annaga dhibaatada dawladda aan ku qabno shalaxa badaan ugula garaaca dooyihii waa la duleeliyey ninkii malay googoynaya waxa waye qoraya qalka laga gelsha xabadaa lagu dhiftay bismillahi raxmaan raxiim anigoo ah magacayga ibraahim cabdullaahi aweys oo ku magac dheer fandeen oo degan degmada xamarweyne gaar ahaan kawaanka malayga caqabadana haasataa waxay tahay waa baaba'nay waa rafaadnay waa silacnay annagoo canshuur eberna looga siinaya haddana waxaana loogu sii daray in goobteenii shaqada la xiro nala dhaho ma ku shaqaysan kartiin waa fasaxantiin haddii aa qaadan lahaydna taas waxaana loogu sii daray xabad iyo dil iyo dhaawac iyo dhimashana loogu daray xabadda waxaa nagu furay ciidanka dawladda waaye oo nagu fureen na dileen na baabi'iyeen dadkeenna dileen waxaa diyaar u nahay dawladda markaa dhahnay maxaa saa noogu gelaysiin dad shaqaystaan ahayni waxayna dhaheen anaga amar baa qabnaa inaan meeshaan xirno amar baa qabnaa amarka madaxweynaha waxaanu amar baa ku qabnaa in meeshaan aan xirno marka annaga shacabkiyaa nahay in dawladda eena garaafaysa ma rabno annagana inaan wax garaafeena ma rabno dawladda dawladdeennii waaye dawladda aan ku tiirsannahay waaye dawladda shacabkeennii waaye farmaajo maalintii la doorinaya wuxuu dhahay aniga shacabkaa u shaqeeyaa ilaa iyo haddeertaanni igeen
halkan naga daawanaysaan daawada waa Maanka Media. Waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena sidaad hore nooga barateen. Waxaan ku soo gabagabaynaynaa video ama muuqaal aan isleena uu ka qoslin doona daawade. baryahan waxaa social media ku soo badanaya calafdoon ama guurdoon adigoo barnaamijkii wada ama daadihinaya haddii laba qof oo kale luuqada kuu soo gasho sidee ku xalin lahayd luuqad ka mid aan aqoonin. daawasho wacan barnaamij midkan la mid intaan ku kulmi doono sida ay nabadgelyo. sheegto wali oo dhibay hay sidii aan wala intaas oo sanahan sabira inaad sheegto faday على شيء أبا يقول كان وحنا كير أفر سنة قبل أنا أفر سنة استعلنا هاي شو كان سنة والسعني حرير نقد حيي هذا كل أحد عيولك أول شيء تفر سنة تجارك ميه قريب يكر أفر سنة فيري أبا وحير يعني يرد على قراعة على سي يرد نفرا وحير سوق ورا عبدو هنا غيرهم حاشيك قفت أفر سنة شو كان سنة نروب أسلين ما عندهن وأنا ساعات مكان نريد كروك جيلة يا كاري شو مسكور لانو باري توري عن موضوعان أنا ما كأني كروك جيلة يا ريت شوف أريتو هي كروك جيلة أوكي لانديري أدم فهمي زوج أدم فهمي أنا مش قفت ميدو كجيس هاي على زي سورة بالبيت على صغر عي ويل كوي كوي معنيه أفر سنة أنا إلى سنجري كوران كجعلا متقنا هالكاسن كي إلى سنجري ويلي مرك ويل كمروة ويل وحوي أبتجاء مروة ويل وحن كوي الصومالية ذو كجعل محل هذا أبو شو دبي من مسافري هاي إذا كانوا ناكربيا ورا عبدو إن هذا رو ما حاس كلي وحوال هذا هنيو نيو تواس فضاني تينا ده هذا كلام كجرتو نيو هذا ما تيجي شو هاي قرطي وحيري كذي مش هنقلها وحيري كذي ورا عبدو إلى ذيرو مش متى فضاني وحنا شيء اسمه حيته وقفته وحي كنت مناك بقفتها ومناك بقفتها ما يتواصل فلان يا كريم ناي خبرات فلان maaha inaad yaro ma qabadhe oo ma yadhe meeshay ugu ceebeen anigu baashan aksha ku aqrinayso maanta baal horta jici baal jacsan ku hadal horta mideeda kale maya uga baxad waa isku sheekada isku dheereen maya ma to tiim sheekaysan ma hadii yadalay ka weelana ma ka weelanay adigu ma yadhe ka weelana ma yadhe inkaad qofta mid ka saaraya aye وعلى شيء والفيلم باي وايد كسر ضهاي وريك أبو حيرة باي جبرنا ما قبي ناكلنا ما أركنه يرمي فانتي أخو ما مركز منو ناقل قبي جبرنا أرك وحلا وصل ويا لكن وما قدر مكانه ليه واقف بيا من الناقر كه عبدو هادو أما ينادر روح مكر قبل أديكوا أمينتو أدنى لو ذاك هادو ينادر ما ناكل يفيلم كانتا ما يا من مجال بايله هي ويلي هو بان توصور لي أريد مسكور سدا معي يا مجال بايله هي ويلي أفرب الإمبناء توكل لي وعسكو أرسل معها هو بان على شيء واحد ربى يسوق تلفون كجاجراني جاي واحد جاجنا قلنا ياي عبدو ينادر مسكتها والله بالله يطلع وعيبين سامع كل ماشي وعيبين سا ورنادر ما خنيسا أفرفضوا محيته ينادر وناك بمكاد بكيني ما يده وبالك أنا قياس موقف فهمي يعني وماشي هم وعيبين مش اللي متهنيو دقيق شوية دي ولا مفضاو ليك ويلاني لانديري مفضاو هي وروحي يا بايو ناقنا كده بكيني ما يري أفارات نقلي معي مركب السياسة سؤال قوي سؤال سوك ويديو أو يديروا بها ويديو هاي عبدو ويدي يو أنا أريتوهم فيسبوك أنا مكعرقاو هدوه أنا يدرس كفهم أنا هو بعد هذا سدنا وقت حبته أنا أريتو ويحكوا يا باي اللي بيتهم بلودان فيسبوك فلوك وهاي يوصل درسوا واكو تصاونا أرفلو بالان له وأنا ساز مكارن فيسبوك سناب جات دي من مكارن ما يكره هي أريتش كفهم أنا سناب جات ويحكوا يا باي يوصل درسوا سناب جات كاس كفهمين ناي ورنا كون لانس هاي ورانا مكارن ولا حكي درس راي ولا ما أدري أريتش